maalin kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen degmada Tieglow waxa saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay shaaciyeen in duulaankan uu bilow u yahay howlgal loogu magac daray badweynta India. ciidamada AMISOM iyo dawladda Soomaaliya ayaa hirgelin doona howlgal cusub oo loogu magac daray badweynta India kaas oo bilowday 24 bishan oo ku beegneed maalinimada shalay. taliyaha ciidamada AMISOM Andrew Guti ayaa maanta saxaafadda u sheegay in howlgalkan ujeedkiisu uu ahaa qabsashada meelaha ay ku sugan yihiin xarakada Al-Shabaab ee in la isku furo wadooyin ku xirmay colaadaha ka jira dalka. And in the same vision we planned the new offensive. waxaanu bilownay howlgal loogu magac daray howlgalka badda India oo aan uga gol leenahay inaanu qabanno dhammaan deegaanada haray ee gacanta ugu jira kooxaha naga soo horjeeda. Offensive started 2 days ago and yesterday we already liberated. howlgalka waxaanu bilownay 2 maalin ka hor waxaanu shalay gacanta ku dhignay degmada Tieglow oo muhiim u ah qorshe aanu damacsanahay waana degmo isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Beledweyne. And this town as you are aware is very strategic and this town lines along the main road from Baidoa to Bertwe. abaandulaha ciidanka qalabka sida Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ay ku guuleysteen in Al-Shabaab lagala wareego degmada Tieglow. operationka koowaadna waxaa lagu qaaday Tieglow oo shalayto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM oo si wada jira uga howlgalayay aaga Bakool ayay gacanta ayaanu ku dhignay shalayto. operation Indian Ocean wuxuu kaloo xal u yahay challenge kale ama problem area oo ka soo baxay howlgalkii hore ee iiga. deegaano badan oo lagala wareegay dhawaan xarakada Al-Shabaab ayaa go'doonsan waxaa kamid ah degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan oo ay adag tahay in la gaarsiiyo gargaar dadka iyo dunyada ku dhaqan halkaas. haddaba deegaanada aad qorsheenaysaan inaad la wareegtaan iyo kuwa aad qabsateen ma ka baaraan degteen in aysan la mid noqon kuwa hadda xaniban. su'aashaas ayaan weydiiyay General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi abaandulaha ciidanka xoogga dalka. wuxuuna howlgalkan ku salaysan yahay in wadooyinka la furo dhulkana la xoreeyo si shacabka Soomaaliyeed saacadan hadda in la hadlaayo waxa xamar ka baxay raashin ay ka xaynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel dhaxa ay la kulmi doonaan AMISOM si wada jira ay u kaxayn doonaan oo la gaarsiin doono meelo kamid ah meelihii hore waxay yaqaan. waa howlgalkii labaad oo ay AMISOM iyo madaxda dawladdu ku dhawaaqaan kaas oo ay ku doonayaan inay ku hantiyaan dhammaan bagayga Soomaaliya. 3 bishii Maaj ee sanadkan ayay ahayd markii AMISOM iyo madaxda dawladda ay ku dhawaaqeen howlgal loogu magac daray Eagle kaas oo AMISOM iyo dawladdu u suurageliyay inay qabsadaan deegaano badan sida Janaale, Qoryoole, Maxaas, Warsheeq, Waajid, Xudur iyo Buulaburde. Aways Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.